jacayl dhaxal gale wax dhaam la bal maxaa ka dambeeyay hayaay tuugnimo cad qamar suugaani oo ah fanaan caan oo aad wada taqaanaan iyo sidoo kale fanaanka xaaskiisa Nasiim Sooraan ayaa waxaa dhacday in maalmihii ugu dambeeyay uu khilaaf weyn ka dhex taagnaa dhaxdooda ayagoo ugu dambeyn qamar suugaani uu sheegay in uu furay Nasiim furitaanka Nasiim bal maxaa ka dambeeyay Nasiim Sooraan hore waxa ay qamar suugaani ugu haysay YouTube-kiisa uu markaas heesaha soo dhigo ee milyanada u gaaray lacagta farada badan ee xagga ka soo galayay waxa uu markaas ku dhacay akoonka markaas Nasiim maadaama YouTube-ka xaggan akoon looga sameyn karin oo qof dibadda joog loo baahan yahay sida awgeed Nasiim waxa markaas ay joogto sida wada taqaaneen London waxaana ugu xirtay akoon markaas ay leedahay qamar suugaani YouTube-kiisa marka lacag walba marka qamar suugaani YouTube-kiisa ka soo gasha waxay gali jirtay akoonka Nasiim Sooraan balse markii uu furo kadib qamar suugaani waxa akoonka uga jirtay sidoo afkiisa ku cadeynay u jeedaan qoraalkan uu soo dhigay bartiisa weyn ee Snapchat-ka in uu markuu fasaxay ugu jirtay 2 milyan oo dollar oo lacaga markii uu furo kadibna waa ay kala gambisay oo waxay tiri maxaa ii dhiibatay wax aan ku hayo habeeraatay ma jirto maxaa ii furtay oo cad waay ma fahanteen marka arin la yaab ila noqotay ma rumaysan doontaan sababtoo ah aniga xataa saas oo kale ma rumaysan balse page-kiisa saxda ah waa kan qamar suugaani Snapchat la iskama dhici karo Snapchat la iskama qaraaban karo qofkii sax ayaa ku soo fadhiisanaya sida awgeed qamar suugaani waxa uu sheegay in 2 milyan lacag ay ka dhacday naagta Nasiim Sooraan oo ahayd xaaskiisii hore waligay allahay ma maqal mana arag naag tuuga ah oo waliba caana balse hadda ay soo baxday arintan waxa uu sheegay qamar suugaani inay markaasi ay ka qaraarsan tahay furitaanku qamar suugaani furay talaba qof waligood is furtaa sida la sheegay qamar suugaani sidoo afkiisa ku cadeystay waxa uu sheegay inuu nafsigii udbaad aragsan oo iska daacad ahayd uu ka soo baxay sida hore loo yiri shaydaan iyo qamar degdegay wax walba ahaato wax walba waa calaf noloshan aad arkaysiin lamaano walba isqaba iyo isfuray waa iska calaf wax gacanta lagu haayo maaha waa wax Ilaahay gacantiisa ku haayo labadii qof uu doono isku geeyaa labadii qof uu doono kala wada sida awgeed balse waa arin la yaab leh oo markaas idinkuba aad la yaabi doontaan oo aad beenaysan doontaan qaarkiin inkastoo arintani xaqiiqo ay tahay oo 100% isaguba afkiisu ka cadeysanayo Snapchat-kiisa bartiisa saxda ah uu soo dhigay u jeedaan shaydaani qamar degdeg bal maxaa ka dambeysay qamaro lacagti laga xaday lacagtiisii intaas uu soo shaqeynayay miskiinka ma ahayn fanaan maalin walba hees soo galiya sanadkiisu uu aamusan yahay fanaanintii dambe waaweyn maalmaha sii noqdeen si uu aamusan yahay isaga soo tuuray ilaa kuwa cusub hadda social media soo galay ma kuwa caanka mar la bartay waxay keeneen maadaama la bartay in oo markaas markii doonaan soo galiyaan oo sanadkiiba mar ay hees kala kacsan oo markaas bilyaanaad ay u gaartay markaas ay soo dhigaan wax walba ahaato qamar suugaani bartiisa Snapchat-ka ayuu soo dhigay ereygan oo ahayd maxaan ku dhahay lacagta ay Nasiim iga xaday qof aana oo qof kale uu furay uu been ka nafsanay ma jirto qamar suugaanina sida ogtay aragsi markay kala tageen hal hadal afkiisa kama soo bixino dhaga hadal ama hadal hayn oo qamar baad aragsana sidoo kale baad aragsana iyadoo sidoo kale fanaaniinta saxda ah caanka saas loogu yaqaan laakiin qamar suugaani maanta maxaa ka hadalsiiyay wixii ka hadalsiiyay wax weyn waay wax yar ma aha waxa ka hadalsiiyay qamar suugaani uu afkaamay fanaaniinta aad arkaysaan waxa kala jira fanaan yani afkiisa lagu dhicin karino afkiisa dadka iskaga celiya iyo fanaan aamusan oo wixii rabo laga sheego aanan afkaasi juuqda aanan qaadin laakiin qamar suugaani maanta wax ka hadalsiyo qoraalkan ka soo qoray kulay wax sahlan maaha wax fududna ma aha kowdaha aniguna 100% maadaama beejka soo galiyay waa ka naxay xataa waan sii fiiriyay inuu kiisa saxda yahay waa sii fiiriyay waa kiisi saxda ah idinku waa wada tagi kartiin su'aalo waa weydiin kartiin qofka su'aal weydiisatay uu jawaabaya ciilka haya darteed kulay waa garanaysaa qof intaas ka soo shaqaysanaya YouTube miskiinka ee lacagtu islahay bishan qaado hadii laga gambiyo kulay waa garan sidoo sheegtay wuxuu yiraahdan ogaala in lacagta ay qaadanayso marka lacagta ka qaatay kadib ayaa naagtan furi lahaa laakiin ma isdhahayn buu yiri Nasiim ayaa markaasi lacag ka qaadanayso maanta Afrika ma joogto London ay joogtaa lacag ka qaadan London Europe oo dhan lagu shiiday kowdaha iyo Ingiriiska oo dhan kulay London ma ahan maxaan ku dhahay Europe ay ugu soo qaxleen waa Ingiriiska waa ogaay marka sida awgeed arin laga naxo waay inay Nasiim saas sameeyay Nasiimay
sharaf dar alle kugu rid awal baa laba qof oo isjecel markii saa oo kala tagtaba dhaxda Yurub ka soo tiraado lana lagu filanayn yaa haddana waa talacagti xadi bala waji dheere maxaa ku geeya xadnimada iyo tuuganimada oo saa u quruxda badan qamar suugaani kolay been ma sheegay xaaskiisa runtaan been kama sheegay kowdhaha waa arin la yaab wallahi